markale barnaamijkii toddobaadkan oo kale aad nooga barateen halkan idin ka soo baahinay lagu magac darnay maxaa ka runa waxaana habeenkan caawa marti noogu ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed xaaji ibraahim cigaal oo booqasho ku maray maalmahan dalkan jamhuuriyadda Djibouti kala dambow markii uu socdaal ku soo gaara bixiyay gobolka dalal fara badan oo ku yaala mudane madaxweyne habeen wanaagsan waxaana aan mudane madaxweyne ku faraxsanahay anoo ku hadlaya magaca soo saarayaasha barnaamijkan jeclayna ku soo dhaweey barnaamijkan cadadkiisa aad ka qayb qaadanayso maanta waxaana taariikh ahaan nolosha siyaasadda waxa uu soo galay mudane maxamed xaaji ibraahim cigaal sanadku markii uu ahaa 1954 waxaana uu ka mid noqday hormuudadii markaasi ummadda Soomaaliyeed isku geeyay meel ee asaasay jamhuuriyaddii Soomaaliya waxaana ay noqotay in uu ka qayb qaatay nolosha siyaasadeed ee dalka Soomaaliya waxaana uu ahaa ra'iisul wasaarihii uu afgambiyay General Maxamed Siyaad Barre mudane madaxweyne xeerka barnaamijkan waxa uu yahay 3 wariyayaal yaan ku wadnaa saddexda wariye waxa aan u yeelay horta marka hore oo wax ka weydiin doona nidaamka iyo nolosha balmaanta Soomaaliland oo ah Umar Ahmed Umar Kaalay waxa uu aniguna waxaan bal isku day doona aakhirtaanka bal wixii ay ka tagaan ragga wariyayaashii inaan wax ka ilaa mudane madaxweyne marka hore salaan diiran marka xiga su'aasheedu waxay tahay rugcada siyaasadda u soo bislaaday kolka inta aanan xaaladda Soomaaliland ay imika ku jirto aanan wax kala soo qaadin waxa aan jecelahay inaan ku weydiiyo su'aasha maadaama aad tahay nin goobjoog ka ahaa kolkii abuuritaanka Soomaalida weyn aanad ahayd ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay sida uu imika saaxiibkay soo sheegay isku tagga labada isticmaar Talyaaniga iyo Ingiriiska ma waxa asmaxay adifad ka dhalatay dadweynaha mise xusbiyadii siyaasadeed ee kolkaas ka jiray labada gobol oo go'aan ku gaaray in ay labadii gobol ay isku geeyaan waxaan u jeedaa wax Union Act ama heshiis sharciyan oo kolka la isla gaaray ma yu jiray intaan su'aashaada ka jawaabin waxaan jeclahay marka horeysa inaan aad ugu mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Alxaaj Xasan Guuleed oo meesha lagu soo dhaweeyay ina casmay dawladdiisa iyo shacbiga reer Djibouti oo isagu si fiican oo aanan mustaahilin oo xamaasad iyo walaalnimo iyo wanaag la soo dhaweeyay intaaba inaan hortu ka horeysiyo aad walaalayaal mudan tihiin u mahadsan tihiin walaalnimada waxa la tusteen iyo kalgacalka la tusteen walaalnimada keentay waxaan idinka mudanay ma aha ta kale marka su'aashaadi baan soo noqonayaa waxay dhacay 60kii laba kelmadood oo qura laguma soo koobi karo waxay u sababaha in Ingiriis oo maxay ahayd bariga Prime Minister ayaa wuxuu yiri dabayl ayaa caalamka maraysa wixii wal ee hore u jiri jiray bedelaysa wind of change ayaa dhacay marka 60kii waxa joogay dabayshaas ayaa waxa waday ra'yi baa laga hore u soo dhisnaan jiray walwaljeesha Soomaaliyeed hal isu geeyay oo ay ka timid shanta Soomaaliyeed waqti Ingiriis uu haystay afar dal oo Soomaaliya Djibouti ma ka maqnay inta kale hayay walaasa afartii dal dawlad qura cimilada iyo lacag qura iyo administration qura u yeeshay Somaliland iyada inta wax haysataa barigaas wax qabsatay ay gacan qabsatay waxa ay leedahay barako leedahay iyo waxa ay leedahay barwaaqo leedahay wada jirku ayaa bariga la arkay fikradda la yiraahdo Greater Somalia bariga dagaalkii soconayay ayay dhalatay 60kii haddaba barigaas aad orto oo maanta loo oomay in Soomaali maxay ahayd kulligeed meel la isugu geeyo barigaas ay abuurantay
laakiin maca alasaf inta laga fadhiistay oo la yidhi sidee bay ku iman kartaa wixii siyaasiya markii aad arrin siyaasiya markaad doonto inaad fuliso uun cadifad iyo sidaasaan doonayaa kuma fuli karo waa in loo dhigaa takhdiid bilaan loo dhigaa walaa sidee buu ku iman karaa ra'yigii annagu markaa 60kii iyadoo aan wax takhdiidahoo badan oo la dhigay aanu jirin dadkii aanu xagga ugu tagnayna kulligii aanu sidii annagu bilijmaac aanu uga wada raalli ahayn israac ama ugu wada haraadanayn aan loogu wada haraadanayn ayaa la israacay bilowgii waa laaxan ka galay bilowgii ayaa laaxan ka galay oo labadii actadi unionadii aanu anagu ka fulinay hargeysa xamar lagama fulinay mid gooni ayaa laga fuliyey marka dadka looyaradii waxay yidhaahaan juridically yani sharciyan marka loo eego laga dalba ismay raacin israac sharcihi ma dhicin waayo waxay wax la wada baaskareeyo qaybuhu qura oo dalka isku mida isku xidhay in la baaskareeyo waa uu maxay taas hadal weeyay marka dalka waa israac sidoo sano ayuu wada jiray waa israac wad mahadsantahay waxa kale oo ku weydiiyey adigu laftigaagu goorma ayaad istiri isku tagaasi khalad buu ahaa ama base waa aad ku dadaashay kolka wixii laga bilaabo inaad khaladka aad saxdid haddii xitaa ay kula gaadhayso kala goyn qaladka anagu markii hore ee aanu meeshii raacnayn laaxin baa galay khalad muu ahayn laaxin baa galay laaxinkii dhahaanu ka qarsanay waa jirtay mar aanu baarlamanka nidhi maxay ahayd xaggaa ka sheegnay nidhi waar wixii laaxin baa jira laga saaro laakiin oo muddo laysku hayay laysku hortaagnaa laakiin waa layska liqay taas labadii dal inay israaceen baa ayaa loo ictiraafay labada geesoodba 30 sano waa tii la wada jiray israacan markaa kala go-an iminka waxa keenay laba hal waxa dhacay maanta Soomaaliya aanay jirinba dadun Soomaaliya mooyaane xamar maanta ay tahay meel laga guuray oo baabaaday ghost town ay tahay iyo wixii dhashay 30 sano khusuusan intii uu afweyn dhulka ka madax ahaa waxay dhashay operation ha waxa jiray ka warrami maayo waa laga wada warhayaa dalka Soomaaliland la yiraahdo 500,000 oo ka mid ahaa ayaa carray oo markaa adal xabash kaaman cayreed ku jira dad ilaahay cayr ka dhigeen ma ahayna waa dadkii Hargeysa dhisay ee Burco dhisay ee Ergaabo dhisay ee hodanka ahaa weeye oo la eriyay oo naftooda la cararay weeye ilaa maxay East Africa Europe meel kastaba North America oo dhan meel walba dad caymada ayaa jooga oo wadankan ka cararay niman aan la yaabo oo maanta ka madaxa Muqdisho madax ka sheegta oo cid ka madaxda ma jirto madax ka sheegta ayaa waxay yiraahdaan israac Soomaaliyeed muqaddas way kelmadda muqaddaska ay garanayaan u mareeymaayo waxay tahay muqaddas waxa weeye wax dhowran oo Ilaahay loo nisbeeyo oo nadiif weey ninka muqaddas ku sheegay waxa maanta Soomaali dhex maray waxa kala kaxeeyay waxa kala dilay ninka muqaddas ku sheegay muqaddaska aan garanay dhaxlaa waxay tahay haddaba haddii maanta waxaad weydiisay goormaad in dalku kala go'goosatay waxaan goostay dalku inuu kala go'o markii aan arkay dadkii reer waqooyi oo tashanaya oo tamar leh oo wixii dhexdooda yeelay shalay dhalay ka noqday xalay dhalay ka noqday oo maamulanaya dalkoodii iyo dantoodii ila laba suuga markaas oo la yiraahdo lagu xidho nin isagu danaysan kari waayo nin dhiigoodii inuu isu xalaaloobo banaystay wara dad isu cunaya dad tashaday iskuma xidhnaan karaan in loo taliyo dalkii markaa maantaasaan
madaxweyne u yeedhay haddana Ismaaciil Abdidoon oo ka mid ah ragga iyagu wariyayaasha barnaamijkan ka qayb qaata isaguna bal wax ka weydiin doona waayaha Soomaaliland iyo wixii kale la halmaanay mudane madaxweyne habeen wanaagsan sanadku kolku waa 1967 waa su'aasha ugu horeysa waqti ra'iisul wasaare aad ka ahayd dawladda Soomaaliyeed doorashooyin baarlamaanna ay ka socdeen wadanka Soomaaliya eri ama ahaan kelmad ayaa laga reebay qaydin ku soorme bisayl isku macawriyo maxay ka dhigneed qolada ugu dhawaaqday maamadan ugu dhawaaqay waxa ahayd labadii qeydi waxa ku qaybsataa bisaylka isku macawriyo waa isku mid hadalku waa isku mid waxay ahayd maxay ahayd waxba dad baa wax qaybsaday markaas haddana wixii la kala damaaciyay meesha dhuusamareebna waa ka yidhi aniga ayalgaalna waan ka yidhi wixii aynu bisay ku qaybsanay ceerinkii bisaylkii aynu kala damaacin saas ayaa arrinka loo jeeday waa tahay su'aasha labaad ee ku weydiinaya mudane madaxweyne waxa weeyaan maamulka Somaliland ee aad madaxa ka tahay sidee buu u dhisan yahay wuxuu dhisan yahay si dimuqraadi ah oo adag oo wanaagsan oo hadii uu noo fulo maanta bilow baan nahay waxbaan u keenaye aan filayno inuu maxay ahayd dalkana wax taro dadkana deeqo ayuu ku dhisan yahay waa ku dhisan yahay baarlamaan saldadii ugu sareysay ee wadanka ah oo laba aqal majlis shuyuukh iyo maxay ahayd majlis nuwaab waxa ku xiga executive-kii oo nin president loo doortay oo isagoo dawlad dhisay oo isaguna wixii maxay ahayd tanfiidiya wadaya waxa ku xiga garsoorkii oo isaguna mustaqilka ah cid walba oo ay madax yihiin nin chief justice oo ugu sareeya iyo shan nin oo guddi la saasaan ku dhisnay waana si dimuqraadi oo wanaagsan sida Mareykanku ku dhow yahay laakiin waxaan filaynaa hadii uu noo fulo oo Ilaahay noo meel mariyo alla nala qabto wax walba Ilaahay ayaa maxay ahayd amarkeeda leh nala qabto waxaan filaynaa inuu markuu dego wax dalkana deeqa dalkana wax tarayno qoomiyada kala duwan ayaa ku nool jamhuuriyadda ama Somaliland marka waxa la yiraahdaa haday ku tahay xagga baarlamaanka iyo haday ku tahay xagga xukuumadda reer ayaa sad bursimo qaatay marka taas oo ma dheelitirno maamulka halkaas laga sameeyay taasi may dhibaato u keenin qoomiyadihii meesha ku wada noolaa ma waxba u keenayso waa ka wada hadalay dad xoogaa wax yar saluugay waa jiraan oo walaalahaya ah aan ka maarmin laakiin waa arrinkaas waxaan filaynaa inaan xal u helno sababta aan waxba loo yeelin waxa weeye laba sanadood oo ku meel gaar ayaa lagu soconayaa waxaan inka saa boorama lagu qaybiyay laba sano oo ku meel gaar baa lagu soconayaa labadaas sano aakhirkeeda intikhab caama baa dhacaya one person will vote qof walba vote buu leeyahay marka qabiil waa laga tegayaa marka beel baa wax lagu qaybsaday beeshii waa laga tegayaa marka dastuur cusub baan dhigi ayaa la dejin doonaa dabeetana intikhabkaas dhici doona waxay la tahay marka nin walba waxaa la baday ayuu heli doonaa ururka SNM iyo ururada kale ee sida SDI iyo USF waxa ay ka mid ahaayeen kuwii qoomiyadaha waqooyiga kala gudbisan iyagu wakiilka ka ahaa markaasi maamulka markaasi horseedka laba urur ayaa iyagu waxa ay ayidsan yihiin midnimada Soomaaliyeed oo waa USF iyo SDI waxana ay wakiil ka yihiin qoomiyado iyagu waqooyiga Soomaaliya ku nool taa maxaad ku odhan lahayd waxaan ka oran wax SDA la yiraahdo wax USF la yiraahdo toona ma jiraan laba nin baa jira oo Admiral Haw hoggaan ku haysto oo xamar jooga waxay naga misalaan ma jirto mana iman karaan dalkayga markii socdaalka aad ku timiday Djibouti waraysigii maalintii shalay lagula yeeshay mar wax laga weydiiyay xaaladda Soomaaliya waqooyiga Soomaaliya jamhuuriyadda Somaliland waxa aad sheegtay in shuruudo ay noo hadsan yihiin ay idin hadsan yihiin si aad u codsataan aqoonsi adduunweynaha shuruudaha idin hadsan waa maxay waxa weeye inaan dalkii dejino
inaanu nimankii maleeshiyada ahaa ee maxay ahayd wadankana iyagu xoreeyey markii hore haddana maxay ahayd ku ah xoogaa dhiba oo ku ah in loo taliyo oo iyaguna taladii ogol in loo taliyo ogol laakiin maxay ahayd ay weli annaga xagga awoodda ay noo dhammaanin in nimankaa laga qaado dalka oo loo sameeyo mihinado ay ku shaqaystaan qorigana laga dhigo dalkiina markaa bilayskiisii iyo dawladdiisii iyo baarlamankiisii xukunkiisu gacantiisa galo intaasaa naga dhiman intiina insha allah dhaqseen noogu dhammaanay raggaa hubaysan ee aad sheegtay mudane madaxweyne ma waxay ka soo horjeedaan dawladdaasi somaliland ka dhisan may kama soo horjeedaan nimankan waxa weeye 2 sano ayaa la dayacay qolada Eritrea maalintii ay asmara galeen ayay walba qorigii inta laga qaaday majarafad loo dhiibo la yidhi shaqo orado qorigii waqtigii qoriga dhammaayay majarafadan iyo madaraqan qaado oo shaqee marka 2 sano maalinta sidaa hadii la yiri lahaa way ogolaayeen haddana waa ogolyihiin 2 sano ay dayacnaadeen ayay la dayacay marka meelay wax ka cunaan markay waayeen iyo cidu talisa iyo cidu maxay danaysa toona ay waayeen qorigooday ku shaqaysteen oo ay maxay ahayd dariiqyadii ku fariisteen oo kastamadii ku fariisteen oo dekadihii ku fariisteen oo ku noolaadeen dadkii cashuurka ka qaateen taas la yeertalax tagtay haddaan doonaynaa imika inaanu qaado iyaguna ogolo wax ka diidan yahay jirin xukun baanu ku haynaa meel madheero la yidhaaho aanu geynay oo imika tababar u socdaa oo bilis laga dhigi doonaa 5 kaam oo kalena intii kalaanu u samaynaynaa maalintaan nimanka arrinkooda dhammayno anagu waxba isla diidan iyaga qudhoodii waa dawladnimadayda taamuuyay xaaladda xagga nabadgelyada kol haddii aad carafka ku dhifatay guud ahaanba somaliland sidee bay tahay qaybaheega degmooyinkayga kala degan inta aan ku sheegay mooyaane nimadaas dabka sita mooyaane laba qabiilo buus ka dhaxaysa maanta ma jiro waa arrinkii waa kan shalayna sheegay dadku aad iyo aad u degan yahay dadkuna raalli u kala yahay meel bay u wada jeedaan maanta inay dawlad noqdaan oo dalkooda dhistaan halkaasaa maanta hayaankooda jira ragga dhalinyarada ah ee markii waraysiga maalintii shalay aad sheegaysay mudane madaxweyne waxaa tidhi waxaa jira rag dhalinyaro ah oo hubaysan oo iyagu meelaha qaarkood dalka jooga oo meelaha qaarkood wax ka sameeyey oo halkan maanta duqu uu iigu sheegay madaxweyne xasan guuleed abtidoon baad u jeedaa baan u malayn duqa markaad lahayd marka taasi ma waxay ka dhigan tahay madaxweynaha Somaliland dul ahaan wixii Somaliland ka dhacaya warisgaarsiin ku filan oo uu ku ogaado ma haysto anigu dibadaan ka yimi waa haystaa wargaarsiin dadka waa ka warhayaa dibadaan ka yimi arrinkaasina maxay ahayd wax sidii maxay ahayd loo sheegay wuxuu ahaa wax accident dhacay buu ahaa oo halkan maxay ahayd law yacda ahaa oo aan wax qiimo lacaynkaas ahayn waxaan bogsiin ka weeyaan aan dhamay sidii aan mudaysiinay sidoo waa ma mudane madaxweyne 1960kii waxaad ka mid ahayd raggii u dadaalay midnimada qaranka Soomaaliyeed sida aan wararka ku hayno maantana waxa aad madax ka tahay dawladda Somaliland ee waqooyiga Soomaaliya lagaga dhawaaqay dagaalka SNM marka hore iyo ururada kala gedisan ee waqooyiga Soomaaliya ay ku soo jireen adigu ma markii muqdisho dagaalku uu ka dhacay baad goosatay in ay raacdo gooni u go'a Somaliland mise horey dagaalka qayb baad uga gashay ma anigu waan xidhnaa dagaalka ma gelin dagaalku daraadii buu ku bilaabmay xarigayga iyo dulmiga aniga la dulmiyay ayuu dagaalku ku bilaabmay anigu waan ka xidhnaa waqtigaas dabeeto aan soo baxayna xamar baan joogay oo inta badan inaan dibadda u baxo layma ogolaan jirin inta badan waqtigaan goostay inaan maxay ahayd ku biiro SNM marna intii ay dibadda ka dagaalamaysa kumay dhawaaqin dalka waa goosanayna markii dalkii la qabtay xamar iyadu dawlad gooniye iska dhisatay cali mahdi dawlad gooniye ku dhawaaqo iska dhistay ayaa maxay noo celi wixii shalay aanu qabnay maanta masala la noogu daray burco horta markaas ay kaga dhawaaqeen waa goosanayna dalka goosan saas ku timi anigu markaa halkaan joogay oo shir Soomaali lagu heshiiyay ayaan ka ahaa gudoomiye ku xigeen anigu waxaan goostay markii shirkaasi baaba'ay ee aan quustay in xamar wax ka hagaagayaan ka quustay shirkii baaba'ay wixii xasan guuleed ku dadaalay ee kulligii lagu dadaalay iyo qaraaradii la qaatay sidii wax loo habeeyay
markii laga baydhay xabarintii la tagay xabad la isu qaatay aan ka quustay in xagga dawo ka imanayso ayaan kuwana dawo u dhowey kuwan ku biir dalkaas ku biir dhawaanta magaalada Nairobi socdaalka markaad ku martay kulamaad la yeelatay kooxo Soomaaliyeed oo kala gedisan marka waxa tiri waxaan ka hadlaynay dhibaatada Soomaaliya sidii wax looga qaban lahaa isku soo dhaweyntoodii maxaa ka suuragal ما anigu ninka عيديد baan ka wada hadalay si bal maxay talo hadii ay waxay moodaan toodii si wax uga qaban lahaayeen in hadii ay waxay moodaan talo wax ka gabriyo taayadiina aan uga warramo in loo baahan yahay ayaga oon wax allaale waxaan uga baahanahay iyo waxaan uga martinahay aanay jirin erayada ka soo baxbaxaya lama gooyi karo lama tagi karo ka soo bixi karo war walaalnimo inagoo ah oo laba raas oo walaala ah oo isu hiiliyo oo wada jira oo dhiig iyo dhaqanba ka dhaxeeyo aan noqon oo isu beer xaalan eraygan xun dagaal ka geeyo dagaal wax aan kaaga tarin nabadna ka geeya joojiyo oo arrinka iyagii sidaas aan ku dhamaysanay ka wahayo naga ugu ogaada labada arrin aan weydiin laba su'aalood oo gagaaban baan ku soo gabagabayn qaybtii anagoo aan qaabilsana waxa mid ay tahay dawladda Somaliland shacbiga ku nool dawladnimadaasi ka dhalatay sidee bay u qaateen sidee bay u soo dhaweeyeen wallahi waxaan anigu u qabaa waxa inay isfaashay waa leeyahay waa la xisnugtay maanta kuma oran karo yani dadku oo dhamay waa xambaarsan yahay laakiin dawladda raali baa laga yahay dawladnimo loo haraadan yahay dalka in la dejiyaa baa la doonayaa dadku aniga aan ii danaynaynin ay iyagu danaysanayaan dhulkii dumay in dib loo dhiso dadkii maqnaa in la soo celiyo caruurtii in iskuul loo helo cusbitaaladii in dawo loo helo dadkii iyaga danaysanaya marka dawladnimaana waxa ay ku gaari kartaan baa niyadooda gashay marka waa ka raali wax u shaqaynaya haday helaan dawlad u tacbayso u socota haday helaan waa ka raali waa la doonayaan dhowr jeer wafdiyo ka socda Faransiiska ayaa in Somaliland socdaalo booqasho ku yimid wax ma la kulantay waa la kulmay ninka ambassadorka ana waa la kulmay kuwa kale yimiba waxaana aad iyo aad dadkii imka intii aan wax bilownay Faransiisku wuxuu ahaa dadka noogu dabacsan noogu tasaban noogu gacan weyn aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waana maxay hayday si fiican waa noo taakuleeya aqoonsigiina markaa si halkeebay ka joogeen baad aqoonsigan walaal carabka ku hayso waa aqoonsigu ma aha wax hadiyad loo bixiyo dalkayga markaan dhamaysano dawladda dhisno imika yani waa bilqasab ku imanaya dan baa keenaysa waa la isku danaysanaya markaas waxa ka horeeya waxaan dalkii dhisno marka waxaan filaynaa hadii aanu anagu ka soo baxno shaqadayadii oo dalkii la arko inuu dal dawladdiisii gacanta ku hayso oo dhisan yahay nina looga baryi maayo markaa aqoonsi ugu dambeyntii mudane madaxweyne waxaan ku weydiin lahaa hadii ummadda Soomaaliyeed urur ha noqoto shacbi ha ahaato maanta Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxaan u dooranay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed lagu yiraahdo maxaad yeeli lahayd Somaliland mise Soomaaliyeed madax ummadda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed oo dhan haday maanta ku tiraahdo urur iyo ummadba maanta waxa aan u dooranay madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed president Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal maxaad dadka ugu jawaabi lahayd wallahi waxa weeye waa ingiriiska ay hypothetical question yani waxa weeye su'aal si u soo gashaaba aan jirin xamar nimanka isu geyn waay maxay hayday iyagii maanta isku dilaya ana madax noqonaya ay maanta 1 million kala marayaan dhiigisa uu qulqulayo weli ilaa imika haddan isu hub samaysanayaan maalinta Mareykan tago nin waliba ninkii kale saabisay horta si ay watimaado nin kale aan madax ka dhigayna rag ururada meel kale madax ka dhigayna ma ay jirto aniga dad baa i doortay soo ma garan dadkii i doortay ee boorama igu doortay maanta mas'uuliyadda meedii baa u soconayo haday ilaahay nacay muuji waxaan yeeli laakiin kaale oo cid kale madax u noqo haday koonfurtu ku timaado ma suura geliso haday koonfurtu ku timaado ma suura geliso inuu ma yahay dadal madax waad maadsan mudane madaxweyne waxa galay qaybtii u dambeysay ee waxaan isleeyahay raggan wariyaasha bal waxay way ka tageen isleeyahay baan wax jecelayn ka weydiin waay meel dhibaato kulay iyo dagaal ay ka dhaceen dad baa qaxaya caruur iyo haween waayeel iyo nin
weligiiba aan meeshii ku dhashay ama meeshii rugtiisu deganid aan ka dhaqaaqin baa tagay dadka ay sideeba u soo noqdeen qiyaas intee leeg baa soo noqotay xaalkoogu samaanta muxuu yahay dalka ma saakan soo qolidii baa qaxoonti ku jira sheegaysa Soomaaliya asaas weey waxa weeye maxay hayday maanta aan noqon UNHCR aan wada joogay dadkaas waxa weeye dad maanta aan aad iyo aad uga warwarsanahay kaamka ay ku jiraan muddada ku raageen waa dadkan ku sheegayay ma aha dad xoogaa riyaalahayo ka baxeen oo caydhoobay ma aha waxa weeye dadkii cambaaburka iyo malabka ku quraacan jiray hodanka ahaan jiray weeye oo laga eriyo laftooda la cararay weeye dadkaas sidii aan uga qaban karno waxaan doonaynaa laakiin dalkii waxay kaga tageen markii hore wuxuu ahaa amni ay ka waayeen marka waxaan doonaa inaanu inamada demobilization aanu samayno inamada hubka ka guro waxaan doonaynaa 2 malyan oo mayn baa ku jira dalka iyagii oo afweyne geliyay iyo SNMba oo markii meesha lagu dagaalamayay kuwii deynta yimaadaan oo bam ku qarxo maxaa waxba u baantay aan kuwina sii guro dabeeto UNHCR wada habayno dib u dejin in iska yimaadaan uma xoogaa baa ka soo cararo Hargeysana la jooga suuqay dowladda ay yimaadaan halkii raashin baabay ku haysteen halkan markii yimaadeen markii soo hordhacay Hargeysa ayay displaced persons ku yihiin oo ay ku cadilayeen marka waxaan doonaynaa marka in la bilaabo annaga iyo maxay hayday UNHCR aanu dib u dejin wada bilaabno wasaarad dhan baan u sameynay wasaaraddaas kala shaqeynaysa madaxweyne waxaa jira in tani sanadku markuu 1988 dadkaas qaar kamida oo soo gaaray jamhuuriyadda Djibouti ma ka wada hadasheen mas'uuliyiinta Djibouti si dadkaasi iyagana bal amuurtooda looga baarandegi lahaa ama looga fikiri lahaa sidii qayb ay uga qaadan lahaayeen barnaamijkaasi dib u dejinta idinkii aad qaban qaabinaysaa waa ka weeyaha labadaba kuwa xagga jooga Itoobiya kuwa halka Djibouti jooga labadu way isku jira arrinkooda waa wada wadnaa iyo kuwa Yemen jooga saddexdaba dadka qaarkood waxay baahan reer guuraa kolka horeba cidba waxba kama ay sugeen roobkoogii iyo rayskoogii wax ka sugayeen kuwaas way iska tageen kuwaas waxa la yidhi waxa qaar kamida waxa la caqaladeeya amniga awgood iyo waxa caqaladeeya oo dhibaateeya maadaama ay jirto dad sida adigu baad sheegayso hub haysta oo cid amar haysaayna ayna jirin amuurtaas si wax looga qabanaya way hawl yar tahay khibraddan ta ka soo helay meel ceerigaabo la yiraaho ayaa 4 qolaa wada deganaa waa la isku qabtay magaaladii waa lagu kala tagay maalin dhaweyd maxay hayday ayaa shir ceerigaabo laga qabtay waa la isugu yimi waa laga wada hadlay wixii maxay hayday la kala qabayna waa lagu kala bogsaday magaaladii dib baa loo wada degay marka inagu waxaan doonaynaa taa arrinka aad sheegayso oo brankeeda wadnaa hadda noo unkan inaanu ama saylac ama geerisa ama Cabdulqaadir meel caynkaas shir uga qabano dadkii dhulka wada ooli jiray wixii midmada waxa la saaro la isugu yimaado lagu heshiisiyo taasoo dhulkoodii oo walaalaa wada degaan mudane madaxweyne waxa taa ijtimaaciga ay soo raacdo kale waxa jirta in dadka waqooyiga ay ahaayeen kulka horeba dad dawlad aan ku xidhnayn oo iskood ka shaqeysto oo isdibra noloshaas way burburtay bayac mushtarigii ku salka ku haysay tii way burburtay arshiif iyo wixii dawladdu ay ahayd qoraal yaalina wuu burburay dadkii ninba gurigi uu lahaa maramaana ka dhacay haddana maanta iyadoo gargaar caynkaas oo muuqda ayna jirin nolosha nolol maalmeedka ninka Somaliland u dhashay sidee maxaad ka sheegi karaysaa maanta wallahi waxaan ka sheegi karayaa maxay hayday nin waliba ma qaaday iyo baakir sigaaro bilsan uu sitaa meel ka keeno isaaqada Ilaahay baa bixiy meel uu ka keenay Ilaahay baa marka laakiin wax inka un dalkii gaajo majaacada oo taala walaw shaqadii yar tahay waxa shaqeeyaa yar yihiin xitaa waxa shaqeeyaan anaga dawladda wasaarada haday tahay iyo aniga haday tahay mushaar qaata ma aanu lihin haddana dadkii waa dhaqan yahay oo wax majaacada oo meeshii ka jooga ma uu jiro taa kale aad sheegtay dadku dad shaqaysta inuu ahaaye xoogaagana laga bedelay waxa weeye aan had iyo jeerna maxay aniga iyo wasaaradeeduba meeshii aanu ka hadlay baan ka leenahay goosashadeen aynu ka goosanay koonfur macna iyo qiimo ay leedahay ma jirto haddii wixii aynu ka baranay xamar ku baranay aynaan xamar kaga imanin oo inaan Hargeysa sidii aynu kaga tagnay ugu soo noqonin goosashadeenu macna male marba haddii Hargeysa ka tageedaan joogno mudane madaxweyne waxaad ka tagtay muddo 3 sano imika laga joogo waxaad qaaday dawlad markaasi inkastoo hababkayga u wadanaynba haddana ummad iyo shacbi iyo dhul baad qaaday waxay ahayd waxaad ku beerisay gobol kale oo Soomaaliyeed markaas saas ay u muuqatay dan xilligaas iyo waayihii la joogay waaga
isla adigii 30 sano ka bacdi inaad gobolkii hore kusoo noqotood madaxweynahan ka ahay tiraa sidee bay nacam adiga shucuurtaadu sidee bay tahay markaad caynkaad leedahay وكل شيء يرجع إلى أصله بالجيري يعني نتراها كله وحوي يورد أرنكاسي مركز سعد وأكتر نكي آن هاي هيدي حوجة الحين وحلقي أبا إنه لا يرقل في سنة مركز كون نقول حوجة تاريخه وأنا كشيكي مركي هاي هيدي نكي هو الرئيس وعليه سيك كشيكي سيدي أي كتيمي شنطة الصومالية إن شاء الله يسلطون سيدي أي كتيمي واتين كشيكيني سيدي إنجليز كمرة سوق كاني أدفانتج لوجو عركي إذا تلا لوجو هالرعاة اللي هالدون مركي أنا دون ما جبتتي نقول أنا هالدون مني تدرسنا أيها لوجو لوجو سعودية سياسة دي عنف قاعد وأنا الحبشي يو كينيا يو إنجليز يو فرنسيس أفرتا قلت إنه ضبع ودك نانكات كان صومالي إنه كات كان والشمس ما يساعد سوقين تدرس أنا اللي ودي تاس ويسوع عضل وإنه كريم مركا أنا قلت ضبي اللحية كيف زبيت النقضي برايم مثل النقضي أنا قلت إنه في دي شقة دي عاد مركي لدونا عاد هو قبط رجي اسكو حوالي كشقية أنا قلت أنا قلت حق حبشي ده عاد رجي اسكو حواليها أنا قلت مركا أنا قناع سنة سيدا إنه واحد كدونين يو حتى أنت لقليه أرتكل لقليه تشاتر كي أرتكل موجود دليل اللي هي حدود دي قالة كتكت استعماره كتجي لما بورين كانوا وإن تاس لوه جان سماء وإن نقطة حدود أفريقيا كأول حيث وعلى كم واقعي وعلى النقطة أنا جاي يرجع مركز انتخاب كهربائي الدولة دعوة تطبيق سنجي بالسيء مركز مسلم وبدلي سياسة وبدلي وحنا نريد ذلكي qolo waliba dadka ay ku dhex jirto iyadu siday uga isaga soo goyn lahayd ama isaga soo dhirin lahayd in laba isticmaal isaga dhirin dadka waa ku baabaayna hadii ay nugul ahaan annaga u dagaalamayna oo xabashi la dagaalamayna annaga u dagaalamayna oo Kenya la dagaalamayna annaga u dagaalamayna Fariis la dagaalamayna dawna ma kari karo super power manni waxaan siyaasadii ku bedelay ilaguna waxay aynu ayidi karo aan ayid لكن إقليم وليبا يستوى عدو كل حجرو أما عدة استعمار سنة يسا هاي سكالر نشيو إنه قلنا عالم في مركة أنا بتقلنا أدون هاي اللي بتقلنا يجينا وحنا كتر كلام كتر لكن لو أنا هبكي دقن أنا صومالي أسلحة الوطنية ورد سيدي بان عنده أيام نكون شقيني ما يمر الميجر كي شيء جاي نك أي أخر كي نقطي أو أن نسوي صبيني فراس ديوال فراس بان وقت جايو أنا هدي لما كان صوتي سومالي جيبوتي أوي ساعيت ما ضمن ده كم حركة هدي سيدي قال لي شو سأنا كوصر واحدة ما كنت درسان معي والله ما كان قاعد وحوي يكوي مالي مشري أنا فرحنا قاعدوا في الدنيا يلا بحبوا واي هي فرن زي ما قرن مركا ساعة صارت مركا سياسة دي لقوا بدل مريض الشيء أرنكي ولا راحيستي هل كان دباكة نعضي ألف دباكة نعضي أو أي كان نستي هل كان وكل نستي وحيو ساعة وصعدة مركا سو عالم كنا أستوتشوك سدي يا أخويني ناجي قبصة أفوين واكيب الشيخ قبصتي مركز كده أنتي كلاء إذن كواكيب يقول كلفي يجي كاله أنا إقليم بان نقول أنا برسا بالين صدري إيش كسودي بوحي بارسل كسودي كصدري وحي واكيب لو كرتي كده أنا في حاجة دي من شيء ستة هالكلام لو كرتي وحي لو كرتي كده أنتي يوم كأنتي كلام أنت يا كلام وحي كل حبوري وحي كل حبوري أيام ما أنت أنتي كلام أنت هاي تاتي حاجة يسوي كل شيء أيكون بابا أنت يوم أنت كل ما مدلنا مدحوينه دور سؤالات بيها عليه وحساسي إسلام إن وحي ضدك ورك أوكل جيا دجمدن وحي لين إن سوماليلاند إن وحي نقطي متكسر سن قبائل كل سنة إن قبائل كاس كل سنة لوجيك نعم لوجيك السمي دولة داس إمك على ضوء مرحلة كتاعي وحنا عم أساسها إن قبيل كلنا إسحاق إن قارك هذا سي فكران أو إلى هنا لقونا مستعمرات دي إساقو كبحي أو يعني لونا كبحي إنه
oo dhulbahantaland ciisaland gadabuursiland ma waxaas land nin walba samaysto waa kula kaftamayaan walba hadduu samaysto abuur caynkaasa ilaa halkee bay nacamde tagaysaa ilaa dowlad midba mid hadday kasii farcanto halkee bay gaadhaysaa nacam ilaa halkee gaadhaysaa waxaa weeye ma jirto taas ma dhacayso boorama waxaanu ku nimi beelo iyo qabaayil si kaloon ku iman kari lahayn ma jirin muradamad noo dhisnayd iyo axzaab noo dhisnayd iyo si kaloon ku iman kari lahayn ma jirin reer hebel baanu ku nimi markaan wax qaybsanaynin reer hebel baanu wax ku qaybsanay marka laakiin waxaanu ka dhiganay ballan 2 sannadood ku meel gaadha baynu sidaa wax ku wadaynaa ku meel gaadhayna wixii ka dambeeya beel waa la tuurayaayo waxay noqonaysaa intiqaab ninkii waliba xisbi ku gelayay iyo kii hal iyo nirigtiisii ku gelayay isagii la jirtaa soo ma garan laakiin waxaa loo noqonayaa qaran baa markaa la noqonaya intiqaab baa la sameynaya taasi waa taas horta taasaasaanu kaga beelo waanu ku tagnay dan baanu ugu kaliftay waana ku liibaanay oo meel baanu ku gaadhnay laakiin waa ka ballanay inay beeli hadho marka kala guurka labadaas kala guurka laga baxo taasi waa taas isaaqana dadku soo sheegay waxaa yidhi hargeys waxa saaq la yidhaahdo oo meel taagan waa aqlabiyadahoo meel taagan oo jiraa ma jiraan nimankaad sheegaysaa dad aqlabiyadu wey hargeysa waa kan maxamed cabdillaahi maxamed maalin walba iyagaa noo garnaqay saaqa u garnaqay waxaa maanta loo maaralayahay ee ay somalilan ka dhismi laadahay waa saaq soo ma garan nimanka aan wada joogno meeshana ama samaro ha noqdo ama dhulbaanta ha noqdo ama waqtigeeda ha noqdo ama ciise ha noqdo waa la og yihiin oo kuma jirto baqa isaaq halkaa intuu baxo waxaad yeeli doona oo idin isticmaalsan doona kuma jirto iyagana annana isuma qabno waxaa weeye dalkaas waxaa la yidhi magaalada burco la yidhaaho baa nin faar xusuusan la yidhaha baa odhan jiray burco waa rodol iyo nusrodol rodol habar jeclaa iyo rodol habar yuunis iyo nusrodol maxamed ciise awi marka nusrodolkaasi meeshuu raaco unbaa aqlabiyad helaysa ayuunbaa miisaanku u dhacaa buudha aqlabiyad marka waxaan ku leeyahay waxaa weeye isaaq meeluu wada joogo iyo wuxuu wada qabtay ma jirto meesha intaasi marto un iyagaaba naga itixaad roon ayuunbaa dalka xukumi doonta mudane madaxweyne waxaa haddeer su-aal dhowr goor inamaduna wariyayaasha ay soo qaadeen ilase tahay inay wax ku eedan yihiin weli aqoonsiga horta waxaa ugu horeeya dadka in dowladnimadiisa isaga uu aqoonsado ayaa ugu horeeya kolka dambe ama dibadda laga aqoonsado ama hala diido haddii aqoonsigii dibaddaba inagoo aqoonsan inaad dowlad tihiin u qalantaan goosateenna dibaddii aad weydaan oo mucaamalaadkii iyo xeerkii dowladnimadu ay taasi albaabkaas idinka oodno nabadna ay ka dhacdo koonfurtu ma u malaynaysaa haddana mar labaad in ay dhalato jamhuuriyad labaad oo soomaaliyeed oo xeerkeedii leh oo aan laysku khaldaamin wuxuu yidhi waxaa qur-aanka aayad qur-aanhi tidhi ilaahay nagu yidhi laa yaclamu lgayba man fi samaawaati waalardi ila allah subxana wataala sadaq allahu alcadiim waxay dhici doona beri ee qeybka ah wax sheegi karaa oo dhulka jooga waa bilaadmigii ama cerka jooga waa malaa'igtii oo ogigoon ilaahay ahayni ma jiraan buri marka ma odhan karo waxaasaa beritu dhacaya lakiin dadkayga haddaan ka warhayo ma anfilayo inay mar labaad raalli ka noqonayaan in xamar laga xukumo waa xamar baasboor u doonta haddii xamar xukunkagaba laga daayo hargeysa iska xukuma lahaa laakiin soomaalidu mid ahaata laydhaan waxaan ku waa mustaqbalka haya taas wax suuragal aan ahayn haddii la yidhaaho way ka tashan doonaa haddii la waxa dawladda idinkaan idin dhiibi ee idinku annagana xukuma way ka tashan doonaan bay la tahay laakiin anigu saan dadkayga ku ogahay maanta halkii taagan tahay dadkayga ma ogola maanta in mar dambe ay maxay ahayd cid kale dawladnimadoodii ka daba joogaan iyagoo reer waqooyi maaha isaaqa maaha gadabuursiya maaha iyagoo reer waqooyi reer somaliland ma ay ogola tan iyo ixtiraafka aad sheegayso ixtiraafka bangladesh 3 sano la ixtiraafin markay ka gooday Pakistan 3 years ayaan la ixtiraafin maxay ahayd dalku haddii uu aan dejin inamada haddaan xoreyno oo aan cashuurtii qaadano oo dawladnimadii dhismo shaqadeedii wadano waaba ilaaweynaa maxay ahayd ixtiraaf oonu soo saaro annagu xoogaa noogu filan
recurrent expenditure waxay dawladda ku baxayay qarashkeedii iyo biliiskii iyo maxay hayday qaraanintii iyo xafiisyadii iyo xoolaha ku baxayay haddaan soo saarno shaqada wadan waaba ilaawi doonaa maxay hayday islaam laakiin ma anfilayo inta lagu gaari doono in mudane madaxweyne in aragtida rag kale madaxda xabar isku haya taladooda ay ka qabaan Soomaaliland mid quruxsan ma ahan tii hadda adigu aad sheegtay weyn laakiin warar hunuun oo soo gaaray Djibouti ama degmadanba ku faafay waxay sheegayaan intii aad joogtay Nairobi inaad is aragteen General Maxamed Faarax Aydiid oo ku yiri in dawlad baan dhisaynaa Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaalow ka soo qayb gal dawladda iska daa sheekadan in dawlad baan dhisnay iyo waan goonadii amuurtaasina waxay muujinaysaa in aragtida ninka bari madax ka noqon kara koonfurta Soomaalida ma halis bay taasi amuurtaasi ku tahay mise way ka sii careysiinaysaa ummadda waqooyiga waxaan ku leeyahay horta arrinkaas wax ka jira ma jiraan maxamed faarax Aydiid ma oranin wadanka kale madax u noqdo maxamed faarax Aydiid 200,000 oo qof buu ku dilay si madax u noqdo cidu hadiyad u siinaya madaxnimada ma ay jirto nin la yiraahdo Cabdilaahi Xaaji oo maxay ahayd been ka maamulo maxay ahayd BBC ayaa arrinkaas samaystay meel uu ka keenayna lama oga nimankaas markaas arrinka anigu Aydiid lama soo qaadin waxa weeye wax la dhan laga sameeyay ma jiraan wahagaag in waxaan soo gaalinaa matqaana laba su'aalood ugu dambeeyay in jamhuuriyadda Soomaalida marka adigu aad ra'iisul wasaaraha ka ahayd waxay ahayd runaanta dimuqraadiyadda dhaba waxaa jirta intaas saxaafadood intaas oo xisbi nin walba wixii xisbigiisa aragtidiisa iyo ka cabiri jiray in waxa la yiraahdaa maamulkii marka adigu aad madaxda ka ahayd iyaa dhalay siyaad barreeyay afgambigii maadaama markii ay nacam in qabiil uu ku salaysmay siyaasadda iyo qabiilada isku xisbi qolo walba ay samaysantay oo la xadeyn kari waayo oo la xakameyn kari waayo dimuqraadiyaddii ilaa intii ay burburinayso dalka in oo miraha maanta la guranayo maamulkii marka hore ka dhashay sidii Haile Selassie markii wuxuu ku dul fadhiyaba tawrada qaraxay tawradana qurankii dambe basi maamush amuurtaasi adoo way aragtinimadaas ka dhaqaaqaya sidee baa bal dimuqraadiyad loogu soo dabaali karay in xadaysan oo nacam la maamuli karo oo ayaha wadanka imika madaxda ka tahay عمر واتو تبرقي لكن يرفع هذا معها تحليش على التميسين معها مفروض معها صوماليا وقت قاس وقت كهري ولحدا كي كسمان أيها ضد كعنت إنه قليني إنه مسوقين أما إسرائيل قبوين الصومالي وإسرائيل قبوين تهاي إسرائيل وحب الله إذا كما قاعد يكرم أيوة نمان روشن ليرا السوفيت يونيون يدركين اللي قعنت وقليني المرتدي من اليدوك سمايست دبد لا تجا روشن لا تجا gudaha idinku ku tababara idinka kiya dalacsiinaysan dalacsiyo idinku wata diyaar bay hayeen ma gooray dhacdaba inay ka horeyso 769 inay ka horeyso ayay filayeen kolba waxay duruuftu tahay 69 kii bay sababta 69 ku timiye lagu dadajiyay ee Cabdirashiid ku dhintayna waxay tahay markii aan anagu meesha soo qalnay ayaanu lismaanta ku sameeynaanu furfuray waxa laala waxay xarkeen lagu xoreeyay shuyuuc noogu xidhnaa ka gaarsiiyay hadaba intaan dhamayno waxaan dibadda idin toorinay ahayd ruushan baa sameeyay saqaaqi maxamed siyaad ma sameeyay aqal buu ku xidhnaa oo isku kaajahay ruushan baa sameeyay maxay ahayd ayaa sameeyay halkii isagaana waxa hore aad sheegaysan xisaabtii badnayd iyo waxay kulli isaga ka wada dambeeyay oo istiqraar dalku inuu helo aan marnaba doonin isagu ilaa uu gacanta ku qabto markuu gacanta ku qabtay xaqiiqatan yani runtaa wanaagsan wuu uga wanaagsanaa Mareykan iyo cid kale maxamed siyaad bi safgaran waayay inuu yaani gacanta markuu ruusan ku qabtay dalka 10 sano ee hore ee ay saaxiibka ahaayeen maxamed siyaad nin ruusan oo hebel ila Brezhnev inuu yaani وأنا من المتو ولا مدلر شو الحمر وحي كل هالشعريستين يا وحي كده وحي جديد تونا متري أركي مريان محمد سياوتي أفريقيا أردم ملوث تشوريس وايد سوبر باور بكتير سنة ساسي ده وامرك دنتو دي كوجارين يو الدلك كيه وحي دون توبي كجلين ملو بجلين مزابي جلين ملو بكجلين لكن ما يهين هذا الاستقرار أي نجو حقي إنك حمات حوي أما قبوينان وحبال يجيل كراينا سلاين هم نقطه أما خبرة الرؤية ما أنت سو أين ولي محايا هيدي دولة دولة لكن كذي أين ولي سوى سن بدل هم نقطه والمسديبني ولنقول رقم
ismaaciil mas'uul baqsool gabagabadii way joogtaa baan u malayn yar bayna xogaa su-aashan anuu doon lahaa imika socdaalka aad ku marayso Uganda Kenya Eritrea Ethiopia iyo Djibouti ugu dambeyntii talada arinta Somaliland iyo Soomaaliya wax ka qabashadeedii Soomaah haddii wadamadaasi deriska kula ahi ay ku taliyaan ay isla gartaan qarannimadii midnimadii ummadda Soomaaliyeed adigu markaa taas deebaad u qaadan lahayd wallahi deetada la weydiiyay taa ma aha nimanka aan weydiin odayaasha weydiinay waxa weeye qarannimadii Soomaaliyeed hadii ay practical tahay way wax suura gelaysa tahay in maxay hayday ay dhismi karto oo iman karto waaba la oran karaa waa laga murmi karaa laba yaa hal isku diido hal isku yeelo waxa laga murmi karaa weey waxa maanta xamar jooga yaa raacna dadku waxa leeyahay ka go'in yaa naan ka go'in xagee bay jooga waxa maxaa jira xamar waa baabaaday gidaarkaas oo kala weeyay calimaadii caydiid baas oo baabiyay dhulkii meel lagu dhaqan yahay ma jirto arrinkii waa Soomaaliya maanta waxa weeye xabaal bay qaarka u saaran tahay dhulkii ma tagay maxamed siyaad baa laga sheegi jiray marka aan tago dhulka duuban kari maayo laakiin dadka ka tagi maayo oran jiray baa la yiraahdo I don't know inaad taayeen dhabtahay waa sidii baa tiibaa dhabawday ilaahay dhab ka dhigay marka de maanta wax nalagu qabeeyo ma aragno yani annagii in la canaado la yiraahdo goy kari maysan sida caalim hadi mooyaan wax nolol qabeelna lagu celiyo wala ka tagina taasir ma hayno xogayaha guud ee qaramada midoobay Butrus Qaali waxa aad ku sheegtay dana gaar ah oo Soomaaliya uu ka leeyahay in uu isagu adduunka uu kaga jeediyay in aqoonsiga Somaliland waa maxay danaha gaarka uu ka lahaa isagu waxa uu dunida ugu baaqay waxa uu dunida ugu baaqay dhimashadii Muqdisho iyo agaarkeeda ka taagneed si loo badbaadiyo miyana ku horeyn wax kasta taariikhdu waa ka maqantay waxa weeye maxay ahayd ninkii Bush loo oran jiray ayaa ninkii u soo diray colkii maxay ahayd raashinka qaybinayay ayuu haay Butrus Qaali maahay Butrus Qaali iqliimkan oo dhan arrinaan halkan imika ka fasil karayno wax dawladda ka dhaxeeya iqliimka oo dhan buu dan ka leeyahay dan maslaxad dalkiisa ah inuu ka maamulo iqliimkan oo dhan masar kolka u maamulo baan ku yiri dalkiisa iqliimka oo dhan inuu u maamulo si uu ugu faa'iideeyo dalkiisa ayuu wada taasina de laba maxay hayday gari laba nin kama wada qosliso faa'iidadii marka waa yani dad baa looga faa'iideeyay laguna faa'iido beelay noqonaysa marka taas weeye madaxweyne waxa raalli ku ahaata waxa su'aashii u dambeysay weey waxa taadu madaxweynihii u horeeyay madaxdii ugu horeysay Somaliland maxaan ka qornaa oo Maxamed Xaaji Ibrahim Cigal in barnaamijka maalintii uu maray waa kii sida la yiri lahayd murtiyood oo lahayd ku saabsan Jamhuuriyadda Somaliland ku saabsan Soomaalida iyo maanta waayaha jooga maxaan ka qornaa oo ummadda geeska Afrika waxaan leeyahay oo aan layga qoray hadii wax layga qoray anigu de xakiim miihi inta laakiin waxay ugu biimixsan yihiin maanta Soomaali caafimaad baan leeyahay oo ay saddex raasiyad iyo laba iqliim ayyaad oo maanta ay dalkii ay jaarka la ahaydna la wada nabad tahay wixii aynu islahayn israac baa ku helaysaa aynu ku weynay maanta inagu oo saddex qoys oo walaalo ah hadii laga helo reer koonfureed hadii laga helo oo aanay ku dhooqan aanay dhiriqaynin walaalnimadii iyo wanaagii iyo wadajirkii haddaan iyagu dhiriqaynin waxaan leeyahay Soomaali maanta ayay noqonaysaa iqliimkana qiimo ku yeelanaysa iqliimka gudihiisana ay qiimo ku yeelanaysa aad baa u maasantahay mudane madaxweyne waxaan filayaa in ummadda Jamhuuriyadda Djibouti aad fikrad u soo kordhisay in ku saabsan waayaha iyo nolosha Somaliland sida ay ku dhalatay dhibaato wixii maanta jira nin walba waxaan rajaynayaa barnaamijkan inuu suura galiyay in uu wax ka ogaado bal waayihii mataqaanaa maanta dhabtaha ee yaalay marweyn iyo mudane yalla waxaan intaasi ku soo gabagabeynaa barnaamijkii maxaa karuna oo habeenkan caawa martin ugu ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Maxamed Xaaji Ibrahim Cigal محاد ريب